sheekadan waa mid cajiib ah aad ayaa loo hadalhayaa sawirada daayar gubtay ayaana meel walba ciyaaraha la soo dhigayaa maxaa ku dhacay cunugan ama daayarkan kooxda ayuu ku biiray sheekadiisa ayaa muuqaalkan ku daawan doontaan saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkan meel dheer gaarsiiya Fernando waa wiil dhalinyaro kubadda ciyaara kana soo jeeda Rio de Janeiro ka waxaa si rasmi ah ugu biiray daayarta kooxda Botafogo. Fernando markii uu jiray 1 sano wuxuu galay shir naxdin leh isagoo socod barada ay u jiray xilli ay ku jiraan biyo kuleel badan taa oo keentay inuu ku gubto wajiga iyo jirka intiisa badan. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen xilligaa inuu ka badbaadi doonin gubashadan laakiin 7 bilood oo qaliin ah oo lagu bedelay maqaarkiisa iyo daryeel joogto ah kadib wuxuu ka soo kabtay dhacdii xanuunka badnayd. Markii uu yaraa waxaa u jeclaa kubadda cagta jecelkaasina duruuf kasta oo wajahay weligiis ma lumin. Wuxuu bilaabay ciyaarta kubadda cagta isagoo ku ciyaari jiray meel guriga adeerkiisu dhow kadibna wuxuu ku biiray xarun yar oo tababar ah xilli akademiyadda uu ku jiray ee tartan kubadeed qabatay ayaa halkaa ku arkay Fernando dad ka socday kooxda Botafogo kadibna waxay u soo bandhigeen heshiis isku dagiisii jaabada waa ku guuleystay wuxuuna hadda si rasmi ah uga tirsan yahay daayarta kooxda Botafogo wuxuuna ciyaaray ciyaaristiisii ugu horeysay rasmi ah. waa sheeko dhab ah adkeysi dhiirigelin leh. Fernando wuxuu si sharaf leh u muujiyay nabaradiisa isagoo u arkay inay yihiin astaanta safarkiisa guusha ku dhow wuxuuna dad badan ku dhiirigelinayaa go'aankiisa iyo geesinimadiisa iyo qofku inuusan cabsanin wax walba haddii ay ku dhacaanna uu riyadiisa ka mira dhaliyo.